السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalyaal waa anigoo mar kale idinku soo noqday sidii caadada inoo ahayna muuqaal cusub idin la wadaagaya muuqaalkan waxa weeye walaalyaal waa wacyi gelin oo rabo nafteedii iyo idinkaba inay xasuusinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka maalin walba akhrisanayno aayadaha quraanka ku jira aayad itaabatay oo waaqiciina ka hadlaysa ayaan idin la wadaagaya maanta dhagtiina isiya waxaana la hadlayaa si gaar ahaaneed muwaadin kastoo reer Djibouti oo dalka u dhashay iyo ku deegaan ahaan ka soo jeedaba midkii lex jecel kale diinta dadka iyo qarankaba iyo dalkaba ayaan la hadlayaa ee doonaya si dhab ah inay isbedel u dhacaan isbedel iman kari maayo ilaa ad nafta u horno ilaa an nafta halis gelino anbiyadii baa noo tusaale nagu filan oo Ilaahay quraanka nagu sheegaya ergeedii Ilaahay uu soo dirtay ay ummadii u soo diray ay dhibeen waxa kamida nabi Muuse alayhi salatu wasalaam muxuu ku leeyahay Ilaahay quraankiisa ba'da a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. إلهي وحنا ليه حصوصتا نبي موسى مركا الله الله قوم كيسا وكوري محاد إيدي بيسان إذن كور دماهانتي أوغ إنانا هاي إرقى إلهي صادرته وإذن كان ليدي صادره مركي أي سي جيستين أيو إلهينا قلوب تودي وسيجيدي إلهي مهنونيو قوم فاسقة أو فساد ودا أو ظلم ودا أو ضدك نبايا إلهي مهنونيو مركا ولا ليال هدي أن ربنا إنا ظلمي جنة هايستا إيا الظالمين تنومي دودي دوب كينس له مسلم شيغانيسا هدنا ظلميسا هدنا متقنا اسكق iyo diimis iyo nijaas nagu dhex nooleysiis xaqeeni xuquuqdeedina beelaha ka dhigay tafaraarqna kala dhex dhigaya hadii aan rabno inaan iska qaadno waa inaan xasuusanaa anbiyadu se u dhibaatoodeen inaan diyaar u noqono anaguna in la dhibo kolka walaalayaal isbedel baan rabaa farna ma dhaqaajinayo isbedel baan rabaa in la dhibana ma rabo socon mayso dhagtii wax maqlaysa dhagtii waan towdo baa qaadanaysa hadalka intaasaan kaga bixi hadalkayga Ilaahay xaqana wada garsiyo nasriga Ilaahay wuxuu imanayaa markaan xaqa si daacada aan ugu helino munaafiqnimada iyo dabadhilifnimada iyo dayuusnimadan aan wadno daraartiina aan la beek leenahay ninkana dulmaaya habeenkiina jilxad ku eedaamino taas Ilaahay uu nagu si imtixaami marka walaal waxaan leeyahay wax kala maahin anbiyadiiba waa la dhibay ee dhibaato diyaar ha u noqono nafteedana horno Allahumma hal balaqtu